waxa keenayso dawladnimo jaceelka iyo isku duubnidiina keenayso taasina way kaga mahad celinayaan intaas kadib waxaad ogtihiin in la dhisay ayaan dhaxdaas in la dhisay maamul aan la isku waafaqsanayn Jubbaland annaguna aan diidnay maadaama 8 sano Axmed Madow uu kursi ku fadhiyay wax uu noo qabtay inay jirin sidaas darteed waxaan rabnaa oo madaxdu ay isku duuban tahay in la dhiso Jubbaland loo dheeyahay xagee lagu dhisiyaa waxaan nahay anagu gobolka koobaad ee Jubbaland ugu weyn hadana waxaan nahay gobolka labaad ee Soomaaliya ugu weyn maadaama sidaas aan nahay Jubbaland loo dheeyahay inaan dhisano xagee lagu dhisiyaa gobolka Gedaa lagu dhisiyaa waxaad ogtihiin shirkii ugu dambeeyay ee dhalinyarada ee ka dhaca Muqdisho waxaad ogtihiin in aysan ka qayb galin dhalinyarada ee gobolka Gedo yaa ka reebay waxa ka reebay Axmed Madow iyo tiimkiisa sababtoo dhalinyarada waxay ka soo qayb galayeen state bay ka imaanayeen stateyaha kale oo dhan way ka imaadeen Jubbaland Kismaayo oo kaliya bay ka tagtay maxaa gobolkii ugu weynaa ka reebay waxa ka reebay Axmed Madow ka reebay sababtoo uu uga reebayna waxa weeye annaga kala qububnaateena sababtoo qaar asaga la safneen qaar dhinac kale aan jirnay isma aan raacsaneen waxaan hadda diyaar u nahay oo madaxda ay maanta u wada socotaa inaan isku duubnaano aan wada dhisano dawlad loo dhan yahay maadaama aan rabno dawlad loo dhan yahay inaan dhisano waxaan ka codsanaynaa idinkina inaad nagu garab siisaan aad noqotaan madaxdu waa labo waa kuwa maanta iyo kuwa berrito kuwa maanta waa intaan aad arkaysaan isku duuban kuwa berrintana adinka weeye dawladda Jubbaland ee la dhisi doono waxa la rabaa in laga dhiso gobolka Gedo aad iskugu yeertaan qof walba oo reer Jubbaland ah inuu imaado gobolka Gedo dhisana maxaan ku dhahay dawlad loo dhan yahay laakiin mar dambe ma yeelino in Kismaayo uu qof maxaan ku dhahay sida Axmed Madow kale mar saddexaad uu asagu isdoorto oo uu dhaho kursigaygaana iska wataa qofka rabana kula saaxiibaya taas mid aan anagu yeelina maahan waqtiga gaaban dartiis aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi